qaaradda Afrika waxaa lagu sheegaa inay tahay qaaradda labaad ee ugu dhulka weyn guud ahaan qaaradaha ku yaala dunida iyo weliba tan labaad ee ugu dadka badan marka laga hadlayo xagga tirada shacabka. yacni qaaraddan lagu sheegay inay tahay qaaradda labaad ee ugu dadka badan ka waran haddii aan ku dhaho 4 dal oo ka mid ah qaaraddan ayaa keliya tirada shacabkooda ay ka koraysaa 100 milyan. yacni dunida inteeda kale markaad eegto magaalooyin ayaaba laga helayaa ama magaalooyin aad u tiro badan ayaa laga helaya in tirada shacabkooda ay ka badan tahay 100 milyan, sida dalka Japan iyo weliba Shiinaha, Hindiya meelo ka mid ah ayaad ku arkaysaa in tirada shacabkooda ay ka badan yihiin 100 milyan. qaaraddan lagu sheegay inay tahay tan labaad ee ugu dadka badan guud ahaan qaaradaha ku yaala dunida, kaliya 4 dal oo aan kuu sheegi doono ayay tirada shacabkooda ay ka badan tahay wax ka badan 100 milyan. inta aan kuu sheegin 4tan dal waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like garayso, page-kana aad soo follow garayso. aad iyo aad ay u mahadsan tahay. dalka afraad haddii aan ka bilaawno ama dalka kaalinta afraad ee ku jiro tirada shacabkiisana ay ka korayso 100 milyan haddii aan ka bilaawno waa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ama DRC. dalkan tirada shacabkiisa waxaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 116 milyan, waana dal ka mid ah dalalka tirada shacabkooda ay ka badan yihiin 100 milyan kana tirsan qaaradda Afrika. kaalinta saddexaad waxaa ku jira dalka Masar. dalka Masar wuxuu ka mid yahay dalalka tirada shacabkooda ay ka badan yihiin 100 milyan ee ka mid ah qaaradda Afrika. waxaa lagu qiyaasaa tirada shacabka ku nool dalkani Masar ama dalka Masar inay gaarayaan 120 milyan. kaalinta labaad ama booska labaad waxaa fadhiya dalka Itoobiya. Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka tirada shacabkooda ay ka badan yihiin 100 milyan. waxaan la qiyaasaa in tirada shacabka guud ee Itoobiya ku nool ay gaarayaan amaba ay ka badan yihiin 138 milyan. yacni Itoobiya waa dalka labaad ee ugu tirada shacabka badan guud ahaan dalalka ka mid ah qaaradda Afrika. dalka haysta tirada ugu shacabka badan qaaradda Afrika, tirada shacabkiisuna ay ka badan yihiin 100 milyan kana tirsan qaaraddan Afrika waa dalka Nigeria. Nigeria waa dalka ugu tirada badan marka la eego shacabka guud ahaan dalalka ka mid ah qaaradda Afrika, waxaana ku nool shacab gaaraya ama shacab ka badan 242 milyan. waana dalka ugu horeeya ama dalka ku jira kaalinta koowaad. si aad u aragtaa arrinkan, haddii barnaamijkan ku xisgeliyey muuqaalka la garay, page-kana soo follow garay si aad u hesho macluumaad xiiso badan oo ku saabsan dunida. aad iyo aad ay u mahadsantihiin.